دانت أتكون شايفان بادلودي مطبيل حجابة هدما دولو هلي ضدك أيضا ليس هذا ضيحي حدقيه يوم عيرك أتكدوبتان ورقيس كيس الدابع إن حمر لو ذا الدقوق وحديدة إيشي وهيستي سدحادة سلسلة الدنقود والله مهوران ومرحلة حساسية كشي سياسة هاتن جرتين سوماليدا وإسكشان حافظات هذه الدنقود لقاها لنا حافظة الله يسكو شافظين هل كالمدى قليدين إيو إذين كدوميي إيو محا إذين كقالي وحي دومي دودي هل كصيدا في الأرض وده هذا الله الصوماليانا وإسكسيداس taxanaha silsilada dadka ugu badan ee daawadaadoodu waxay u dhaxaysaa 18 ilaa 30 sidaa darteed waxay noola ekaatay inaan ujeedooyinka qaar dhalinyarada u jilcino haystan oo sidaan wada sugaynaba ka imanaysay dhinaca iyo dhulkii Soomaalida oo dangood iyo xamar la safar ayuu abwaanka curiyay daba socdaa erayo sidoo tilmaamay dilqaaf aha oo haystii labaad loo hoos galiyay abwaankii reer Burco waa ku haystii hore dulsaarnimada ku sheegay abwaankii reejijiga taas oo ula jeeday Soomaaliya ma degtid wixii kala go'ay iyo wixii isu iman maxaa kaaga adaabataadi u meela orodo Itoobiyaanka ka soo xiro haystan saddexaad weeraryadeedu leeyahay abwaan Cabdullaahi Xawiyaan ayaa wuxuu hal uga jawaabaya weeraradii heestii labaad ee silsilada Xawiyaan oo dirkii Sayid Maxamedkii hurdada u diiday Ingiriiskii soo degay Berbera ee magacyadii islaamka dooriyay hogaamiyihii daraawiisheed ee ahaa Afrikaankii ugu horeeyay gacan iyo af iyo lug loogu tagi waayay diyaaradaha lagu weeraray sayidkii sida ahaa dadkiisa in maanta dulsaar lagu sheego soo dafiraad cad ma aha Xawiyaan oo taas ka duulayna wuxuu ما دوغو تاريخ دير وداغتو مقاشو lagu qoray diiwaankii adoo cadow ku duulsaday doorshay magacyadiini aabihii daraawiistay dulmigii ka diriraad dulsaar aad ku sheegtay abaalkaagu darana dafiraad waa maxay Xawiyaan oo halkii madfacay lagu soo tuuray boqol ku bedelay ayaa heestan kaga dhigaya Hargeysa midaan midnimo lagu soo hadal qaadi karin oo Soomaalinimo lagu sheegi karin taariikhda Soomaaliya oo dhanna 18 May ay ka bilaabato halgankii daraawiisheed SYShi gumeysiga taakada u dhigay Imaam Axmed Gureygi Abasiini iyo Portugiiskii u soo hiiliyayba isku kor karbaashay Eritrea iyo Suudaan kaga daba tagay waxa soo taariikh oo Soomaali ku faanto warkeeda ma haya wax walba 18 May bay ka bilowdaan waxa soo kale ku matalaya abwaanku Soomaaliland joog yar tuway ku doorso Xawiyaan oo gunaanadkii silsiladii hore ay geelaygu shanbu ahaa Soomaaliland ku galay isagoo u duur xulaya kulaha galoof goojabeenta oo ah hal aan rimanayn oo goojinaysa iskana dhigaysa wax riman macnaha Hargeysa oo iska dhaadhicisay inay xamar ka madax banaan tahay malaha abwaan musgale taasoo ka diday markuu leeyahay dib u curashadii ka war abwaan Xawiyaan oo mar kale soo laabtay isagoo abwaan musgale qabno kala degayna wuxuu yiri niyahow deelqaafka wada deegaanka Soomaaliyeed dadkiisa lama qasbo dabuubta xor bay u tahay calankii daayacday buluug ay ku doogsadaan dambina kama ahay jigjiga daloodha warkeeda keen silsilada oo fanaaniin badan fooda soo galin waayeen ayaa maanta waxa faqaraha ku baashaalaya wiilkii faraha laga gutay alfanaan Maxamed Kaadi hobolkan reer Kismaayo oo laba caro u qaba Hargeysa ayaa heestan ku cilbaxay mar dulsaar baa lagu sheegay marna wuu qaldamo shaar buluuga intuu isku iloobay buu Hargeysa ka degay markaas meel coldoon lagu hayn jiray loogu geeyay Kaadi oo mujaahidadii Hargeysa gantaalaha ka soo leelinayay magaceedu afgarashada ahaa Xamar Qoosis Aragsan Cabdi Naasir oo horay u tiray badweyn roobkii ku daayay hadduu doog saari lahaa kalluunka daaqilha adoo taadi dayacay daraad wixii tagiyo halkaad ku ahayd dulsaar maxaad ugu timi durbaan Maxamed Kaadi oo looga u dhigtay runtana ku laaqinaya ayaa wuxuu yiri soddon saniyo dheer aqoonsigaydu doonteen daa'imadiima siin wali dawladihii adduunkuna dayray ka muujiyeen in xamar la wada dego yar tahay waxa diiday sheeg sidaan horay u qeexnay qaybaha u horeeyay silsilada waa qir iyo qori ku taag oo abwaanada isuma dul qaadanayaan laakiin qaybaha dambe in dul loo baxo oo la isu garaabo waa lama huraan heesta xigta waxay ka imanaysaa Somaliland bal aan eegno inay ka soo garaabaan oo su'aalaha la hordhigay ka soo jawaabaan iyo inay halkoodii waabsigii iyo weerarkii ka sii wadaan sheekadana ila meerayso ka dhigaan laxankii musiga waa isla naqshadii hore waa soo saaraha silsilada Cabdi Askari Jibo oo idin ku wareejinaya hobolka silsiladaha Maxamed Kaadi iyo heeskii saddexaad iyo Muqdisho soddon saniyo dheer aqoonsigaydu doonteen daa'im idima siininin dawladihii adduunkana dayray ka muujiyeen in xamar la wada dego waxaa diiday isheeg ay waxaa diiday soddon saniyo dheer aqoonsigaydu doonteen daa'im idima siininin dawladihii adduunkana dayray ka muujiyeen in xamar la wada dego waxaa diiday isheeg waxaa diiday danta aad ku nooshahay fanbaad bilooday madabayl xagaaba
had maada waloo helay dadka aydoon leesaa dayaxiyo xidigihiyo macarkaad ku doogtaan wargeyskaysa daabacaa danta aad ku nooshahay faanbaadiloodaya ma dabayl xaagaaba had maada waloo helay dadka aydoon leesaa dayaxiyo xidigihiyo macarkaad ku doogtaan wargeyskaysa daabacaa madugowda taariikh xilwaada tumaqasho oo lagu qoray diiwaankee adoo cadow ku duubsaday doorshay magacyadiiniye aabihii daraawiishtee dulmiga ka diriira dulsaar aad ku sheegtay abbaalkaagu darana kaafiraadu waa maxaye bilaa cali dafiiraadu waa maxay madugowda taariikh dirwaada tumaqasho oo lagu qoray diiwaankee adoo cadow ku duubsaday doorshay magacyadiiniye aabihii daraawiishtee dulmiga ka diriira dulsaar aad ku sheegtay abbaalkaagu darana kaafiraadu waa maxaye bilaa caleeg dafiiraadu waa maxaye muqdisho daqarkay qabtaan dubaha adigaa la dhacay dabka xooga leh ku shiday adoon daahirin qalbiga haddana duco sheegayo dabiino wali qoolay adaa xamar daabka baday adaa xamar daabka baday muqdisho daqarkay qabtaan dubaha adigaa la dhacay dabka xooga leh ku shiday adoon daahirin qalbiga haddana duco sheegayo dabiino wali qoolay adaa xamar daabka baday adaa xamar daabka baday aniya hodeelka afka wada deegaanka Soomaaliyeed dadkiisa lama qasbo dabuubtu xorbay u tahay calankii dacday abulugay ku dogsada dambina kama aha jigjiga adaloo dhawarkeeda kee aniya hodeelka afka wada deegaanka Soomaaliyeed dadkiisa lama qasbo dabuubtu xorbay u tahay calankii dacday abulugay ku dogsada dambina kama aha jigjiga adaloo dhawarkeeda kee madugowda taariikh dirwaada tumaqasho oo lagu qoray diiwaankee adoo cadow ku duubsaday doorshay magacyadiiniye aabihii daraawiishtee dulmiga ka diriira dulsaar aad ku sheegtay abbaalkaagu darana dafiiraadu waa maxaye bilaa caleeg dafiiraadu waa maxay
ogowda taariikh dirwaadagtu maqasho oo lagu qoray diiwaanka adoo cadow ku tuursaday doorshay magacyadiini abbihi daraweyste dulmiga ka dareera dulsaar aad ku sheegtay abba kaagu darana dafiiraadu waa maxay billah عليك الضفيرة دوا محي